dadka isdiiwaan geliyey ee doorashada u diyaar garoobay ee mar dhowna kaarkii yaraa ee doorashada qaadan doona waxaan ugu baaqayaa maalinta doorashada inaanay baaqanin oo aanay meel iska dhigin kaarkoogu maanta mogtahay saana iga ahayd iyo xaggay ahayd iyo aadan dhihina waa maalinta mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka ilmahaaga iyo aad ka gaarayso aayahooda aad ka gaarayso go'aan maalintaas haddana inaan la baaqanin ee la isu soo baxo dhowr saacadood waxay u taagantahay xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan hadli karin ee la dulminayo maalin kasta dulumkaas iyo mid lamid ah xafiisyada dawladda ka dhacaan maalin kasta Soomaaliyeed maqla cabashadiina soo gaarsiiya madasha wallaahi thumma wallaahi diyaar una waa qaadana meesha ugu sareysan gaarsiinayna magaaladan Mooriyaana hayso jirta Soomaa waa la dagaalamay waa la baxshay musaabeente Ethiopiana soo galay maxaa lagu sameeyay waa la bixiyay shabaab qabsaday ma ka xoog badan yihiin dadkan kama xoog badan wallaahi thumma wallaahi wallaahi thumma wallaahi wallaahi thumma wallaahi hadaysan joojin waa bixinayna oo qofka aan sharci rabin muxuu nagu la feeri bal dhageysta qofka aan sharci rabin muxuu nagu la joogaa muxuu nagu xukumaa Mooriyaanimo ma ogol waa diina Mooriyaanimo annaga sharci in la isku xukumaa rabna annaga ugu horeeyna nagu la xukumo laakiin dhulumkan joogtada oo socda ma aqbaleen mana la aqbali karo nafteena uma qaadeen qof Soomaaliyeed uma qaadeen ogaada shala markii aan ka hortageynana waxaan cid nagu soo hanuunisay cid nagu soo garbashay gashmir garaadkeena ilaahay alxamdulillaah fadligiisa maanta intii waa ka garaad badannahay waa ka aqoon badannahay saaxiibo badan oo aan aqoonin aan baranay maanta dhulmi ma ogolin mana aqbalayn